dadaal fara badan kadib waxaan la soo saaray saddexda xisbi natiijadii ay kala heleen. waxaan jecelahay inaan halkan ka kala sheego xisbiyada saddexda xisbi ee tartamaya oo ahaa UCID, Kulmiye iyo Wadani. haddaan soo qaato xisbiga muxuu ahaa UCID 4 musharax baa ku guuleystay oo magacyadoodu kala yihiin Dr. Cali Maxamed Xasan Caynaan wuxuu helay 2208 cod. Dr. Cabdirashiid Haybe Faarax Nuur wuxuu helay codad 2184. Injineer Maxamed Dayib Cabdilaahi wuxuu helay 2114. Caydaruus Maxamed Sheekh wuxuu helay 1490 cod. sorry xisbiga Kulmiye Maxamed Amiin Cumar Cabdi wuxuu helay 4773. musharaxa labaad Mursal Maxamed Jaamac Suldaan wuxuu helay 2647. musharaxa kale Axmed Cabdilaahi Khaliif Qawdhan wuxuu helay 2350. musharaxa kale Cabdiraxmaan Nuur Abakar wuxuu helay 1876. musharaxa kale shanaad Axmed Maxamed Axmed Ciisood wuxuu helay 1576. xisbiga Wadani 4 musharax ayaa u soo baxay. musharaxa koowaad Cabdilaahi Ismaaciil Cabdi Aadan wuxuu helay 1845. musharaxa labaad Cabdi Cali Xirsi Cige wuxuu helay 1818. musharaxa saddexaad Khalid Maxamed Ismaaciil Horri wuxuu helay 1680 cod. musharaxa afraad Cabdinaasir Haaruun Habane wuxuu helay 1650. aan ku noqdo xisbiga UCID wadarta musharaxiintu waxay heleen 17,950. wadarta gaarka xisbigu waa 250. wadarka codadka guud waa 17,111. xisbiga Kulmiye wadarta musharaxiinta waxay 23,202. xisbiga wadarta gaarka xisbiga Kulmiye waa 650. wadarta codadka guud waa 23,258. xisbiga Wadani wadarta musharaxiintu waa 14,779. wadarta gaarka xisbigu waa 30. wadarta codadka guud waa 14,812. sidaas ayay ku kala guuleysteen dhammaan musharaxiintii ka kala tirsanaa saddexda xisbi.